Socoshadaas oo maalinka ay soconaysid intaasoo tilaab ama wax ku dhow waxay hagaajinaysaa qulqulka dhiigga isla markaasna waxay hoos u dhigaysaa kolestaroolka noociisa xun ee la yiraahdo LDL-ka isla markaasna waxay si guud hoos ugu dhigaysaa xanuunada ku dhici kara wadnaha iyo dhibaatooyinka ka iman kara markino inay xinjir xirto maskaxda oo waxa la yiraahdo stroke oo kale dhinaca kale waxay faa'iido u leedahay sokorta oo markino control fiican yeelato iyadoo markaas habka ay ku shaqaynayso markino hormoonka la yiraahdo insulin in uu si active uga shaqeeyo receptoradii uu ku dhigi lahaa ama macnaha waxay ka hortagaysaa nooca labaad ee sokorta inay timaado macnaha dhanka kale isku kalsooniya ka imaanayso qofka inuu markino muddo markii uu wado tilaabahaas uu soconayo ama maalin alla keena socodkaas uu baxayo jirkiisa energy uu ziyaadayo waxa la yiraahdo markino self esteem kiisa kor u kacayo inuu isku qanacsanaado macnaha iyo awoodda murqihiisana way hagaagayaan stamina ama powerka markino oo murqihiisa way wanaagsanaan especially murqaha lugaha jilbaha iyo markino calves ku leeyahay qaybta hoose